dowladda dalka Israa'iil ayaa maanta 26 Diseembar sanadda 2025 si rasmi ah u qoonsatay madaxbannaanida Jamhuuriyadda Somaliland. Tallaabo diblomaasiyadeed oo si toos ah u muujinaya go'aanka Israa'iil ay ku aadan isbeddelka siyaasadeed ee ku yimid Geeska Afrika. Go'aankan ayaa lagu shaaciyay kulan qadka fogaan aragga oo dhexmaray ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Maxamed Cabdilaahi Cirro, kaasoo Netanyahu si cad u xaqiijiyay aqoonsiga buuxa ee Somaliland. Israa'iil ayaa sheegtay in aqoonsigan uu ku saleysan yahay xaqa ay Somaliland ay ku leedahay qarannimada buuxa, doorkeeda xasiloonida iyo sidoo kale muhiimadda istiraatiijiyadeed oo ay ku leedahay amniga gobolka iyo sidoo kale marinbiyoodka badda Cas. Kulankan ayaa sidoo kale lagu gaaray safgarad ku saabsan xiriirka diblomaasiyadeed, iskaashi amni, dhaqaale iyo sidoo kale tiknoolajiyadeed, iyadoo la isku afgartay in la bilaabo bog cusub oo wada shaqayn rasmi ah oo dhexmaraya labada dal. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa madaxweynaha Somaliland u fidiyay casuumad rasmi ah oo uu ku booqanayo